wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Jubbaland ayaa waxay maanta agab isboorti kala wareegtay hay'adda Save the Children agabkaasi oo loogu talagalay in lagu ciyaaro ciyaar lagu maamuusayo 15 May oo ku beegan maalinka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaana ka qayb gali doona ilaa 5 xaafadood oo kamid ah xaafadaha magaalada Kismaayo oo lagu soo daray hal xaafad oo lagu magacaabo Waamo munaasabadii lagu wareejinayay agabka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Jubbaland qaar kamid ah xiriirka kubadda cagta gobolka Jubbada Hoose iyo kan degmada Kismaayo agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Jubbaland Aadan Faarax Gaaran ayaa waxa uu horeyn sharaxay agabkani iyo xaafadaha loogu talagalay inay kaga qayb galaan ciyaarta lagu maamuusayo munaasabadda 15 May oo ku beegan maalinka dhalinyarada Soomaaliyeed 15 May maamuuska ciyaaraha koobka lagu maamuusayo 15 May oo ay ka harsan tahay dhowr bari runtii aad iyo aad baan garanaysaa aan u soo dhaweynayna agabkan aan u gudoomeynaa agabkan oo naga caawiyay oo nagu kalmay hay'adda Save the Children iyo wasaaradda dhalinyarada isboortiga qayb ay ka tahay ayaa waxaan halkan kula wareegi doonaa koobkaas oo loogu talagalay kooxaha ka dhisan degmada Kismaayo xaafadaha degmada Kismaayo farxad baan u tahay koobkan waxa lagu maamuusayaa maalinta 15 May oo ah waan garanayna maalinta la asaasay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL loo yaqaano 1943 ayaa la asaasay maalintaas ayaan ku maamuusaynaa ciyaaraha way bilaabanayaan galabta waxa lagu furi doonaa labada kooxood ee ka kala socda xaafadaha Farjano iyo shaqaalaha wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Jubbaland Cabdiwaaxid Axmed Yar ayaa waxa uu agabka ku wareejiyay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka Jubbada Hoose Cabdiraxmaan Bashiir Aadan waxa uu dhankiisa gudoomiyaha ku wareejiyay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Kismaayo Maxamuud Cumar Caato wasiirka dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiwaaxid Axmed Yar oo ugu dambeyn munaasabadda soo xiray ayaa sheegay in ciyaartan lagu maamuusi doono 15 May oo maalinka dhalinyarada adduunka agabkan waxa loogu talagalay 6 xaafadood 5 xaafadood degmada Kismaayo loogu talagalay anaga 6 baan ka dhigan sababtoo ah isboortiga qaab buu leeyahay araga waa in isku aadan yihiin dadkii waxaan ku darnay xaafada la yiraahdo Waamo ayaan ku darnay inay ka soo qayb gasho oo ku marti qaadnay haddii saan ku sii socotana waxa weeye meelaha kale dalcadda wixii ka sii sheeyo New Kismaayo maalin walba qolo baan ku daraynaa saas tartanka uga qayb gasha